kusoo dhawow taariikh nololeed kooban oon kaaga diyaarinay fanaanka weyn ee Carbeed ee Maher Zain. Maher Zain magaciisa oo dhammaystiran waa Maher Mustafa oo la soo gaabiyay Maher Zain. Waxa uu dhashay 16 July 1981. Da'diisu hadda waa 41 jir. Originkiisu waa nin Lebanese laakiin baasaboorka Sweden haysta. waa nin fanaan ah oo singer ah, songwriter weyn oo heeso qore, sidoo kale waa musician, music producer. Maher Zain familkiisu waxay u hayaameen halkaas iyo Sweden markii ay da'diisu ahayd 8 jir. Iskuulka ayuu halkaas ku dhamaystirtay, wuxuuna qaatay shahaadada bachelor degree oo ah aeronautical engineering. Jaamacadda kadib wuxuu bilaabay soo saaridda musiga. 2005 wuxuu la shaqeeyay fanaanka reer Morocco ee Red One. waxaa dhacday inuu hayaamo halkaas iyo Mareykanka New York 2006. Zain hore ayuu raacay si uu sii wato soo saaridda musiga, wuxuuna la shaqeeyay fanaaniinta reer America qaar ka mid ah. Maher Zain markii uu kusoo laabtay dalka Sweden waxa uu go'aansaday inuu ka tago xirfadii ahayd music producer una noqdo fanaan heeso qore si uu saameyn u yeesho dadkiisa Islaamka ah. Maher Zain 2009 bishii koowaad waxa uu bilaabay ka shaqeynta albumkiisa koowaad oo uu kusoo bandhigay channelka Awakening Records. Albumkiisa waxaa lagu magacaabay Thank You Allah oo ka koobnaa 13 heesood, wuxuuna soo saaray 1 November 2009. Maher iyo channelkii Awakening Records guulo ayay ka gaadheen social media sida Facebook iyo YouTube iyo iTunes, kaasoo promote ku sameeyay albumkiisa. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله. horaantii sanadkii 2010 muusiga Maher Zain kor ayuu kacay dhinaca online-ka, waxaana soo raacay dadkii af Carabiga ku hadlayay waddanada kale Islaamka, si la mid ah caruurtii Islaamka ahayd ee ku noolayd waddanada Westernka ama reer galbeedka. Dhammaadkii sanadkii 2010 Maher Zain wuxuu noqday qofka loogu Google garaysiga badan yahay dalka Malaysia. Sidoo kale Malaysia iyo Indonesia waxay ahaayeen waddanadii uu Maher Zain ka sameeyay ganacsiyada guuleystay ee dhanka heesihiisa amba macaashka ugu badan ee dhanka heesihiisu ka soo galeen. Albumkii Thank You Allah wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Platinum Music Malaysia iyo Sony Music Indonesia, wuxuuna noqday albumka loogu iibsiga badan yahay 2010 ee dalka Malaysia. Maher Zain heesihiisa wuxuu ku soo saaray dhowr luqadood oo kala duwan, waxaana ka mid ah luqadda Ingiriisiga, luqadda Frenchka, luqadda Carabiga, luqadda Turkiga, luqadda Malayga iyo luqadda Indonesianka. Sidoo kale waxaa ka mid ah luqadda Urduga, taasoo uu la qaaday fanaanka reer Pakistan ee Canadianka ah Irfan Maki. Maher sidoo kale waxa uu sameeyay showyo oo ku qabtay waddanada kale ah UK, United States America, Malaysia, Indonesia, Saudi Arabia iyo Egypt ama Masar. Maher Zain sidoo kale wuxuu awards ku helay qasaa'idka ama nashiidada Ya Nabi Salaam Calayka, taasoo laga sii daayay idaacado iyo barnaamijyaal caan ah. abaalmarintaas oo ku garaacay fanaaniin waaweyn oo ay ka mid yihiin Hussein Al-Jismi, Mohamed Munir
iyo Saami Yuusuf. السلام عليك يا رسول الله. Maher Zain waxaa loo doortay xiddiga sanadka 2011 tartankii la qabtay ee ahaa ay qabatay shabakadda On Islam Net. isla sanadkaas 2011 wuxuu ka soo muuqday show amba xaflad ballaaran oo lagu qabtay waddanka UK oo ahayd Muslim Lifestyle. Maher Zain waxa uu sii watay horumarkiisa isagoo ka soo muuqday TV-ga Indonesian TV 40 qaybood oo si drama ah loo waday. haddii aanu ka hadalno abaalmarinada uu ku guuleystay waxaa ka mid ah 8 Platinum Warner Music Malaysia uu ka helay 8 jeer ayuu ka helay Platinum dalka Malaysia. waxa uu 2 jeer Platinum uu ka helay Sony Music ah dalka Indonesia. abaalmarintaas aan soo sheegay wuxuu ka helay albumkiisii ahaa Thank You Allah. albumka labaad ee Forgive Me waxa uu ka helay 4 Platinum taasoo ay siisay Warner Music of Malaysia. Maher Zain dhinaca nashidooyinka oo qaaday haddaan isdul istaagno dhowr xabaan ka sheegno waxaan ka xusi karnaa Ya Nabi Salaam Alayka, For the Rest of My Life, Acmaaluna oo 2015 u qaaday, Ciidun Mubaarak oo 2022 u qaaday, Insha Allah oo 2010 u qaaday, Number One For Me oo 2012 u qaaday, Guide Me All The Way oo 2012 u qaaday, Ramadan oo 2013 u qaaday. يرتوي بالحب قلبي حبي dhinaca dadka kala soo muuqday ama fanaaniinta kale ku labeeyay heesaha qaarkood amba nashidooyinka qaarkood waxaan ka xusi karnaa Irfan Maki oo kala soo muuqday nashido la yiraahdo I Believe, Mas'ud Kurdish oo kala soo muuqday nashido la yiraahdo Never Forget, Raif oo kala soo muuqday hees la yiraahdo So Real, Mas'ud Kurdish oo mar labaad kala soo muuqday nashido la yiraahdo Ciidun Saciid taasoo lagu luqeynayay sidan: Ciidun Saciid, let's enjoy this happy day.